استعمالك قابك خلطة تربية يحريرك قوسك تاس runtii dhib weyn ay naga haysata maxaa yeelay waxa la rabo qofka inuu soo mariyo waxyaabaha naafica ee cusub inuu qaato alxikmatu daalatu lmu'min waxyaabaha xun oo laga talaabsaday in waxa rabaa in laga tago xikmadda waxaa leh qofka mu'minka ah meel kastuu ku arko isagaa ku xaqlay saasuu leeyahay nabiga sal alla alay salam dhibaatooyinka waxaa ka mid ah faragelin badan ay qaraabada ku sameynayaan qoyska yacni odowga xaggiisa hooyo ama islaanta xaggeedii waxaa la rabaa qoyskan inaan qof kala soo dhexgelin hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ilaahi yidhi subxaana watacaala adiga iyo dharkaaga dhexdiina maxaa geli karo ma geli karaan marka hooyo waxaa laleeyahay hooyo calaa ra'si wa cayni hooyo waxa waaye waa ku qadarinaya waa ku ixtiraamaya laakiin reerkeyga aniga ha soo dhexgelin xuquuqdu waa inay kala caddahay waxaa la yidhi waxaa laku qabsaday fuqahadu waxay leeyihiin marka bilowga hore markaad rabtid inaad guursatid iyo marka aada guursatay oo aada degan tahay reerkii aada qabtid way kala duwan tahay markaad guursan rabtid hooyo waxaan rabaa hebel gabadha inaan guursado hadday ku tiraahdo hooyo aniga uma arko gabadha inaad guursatid yacni fuqahada badankoodii waxay leeyihiin hooyo inaad ku raacdid waayo asbaabo waaweyn haddayna jirin oo kaa mancana laakiin haddii guri dhisan oo hooyo ay soo dhex gasho ama aabbo soo dhex galo soo dhexgalkaasna uu dulmi yahay hadday ku tiraahdo hooyo gabadhaa ifo ma furaya mise ma furaysid fuqahada majoritygood waxay leeyihin ma furaysid hooyo si kale u sasabay si kale u qancana laakiin hooyo islaamta waxa waaye waa umul awlaad waa hawl badan baa ii haysa raalli ah waad leedahay way ku duceyna salaad maxaa yeelay inama taacatu في المعروف يرى النبي صلى الله عليه وسلم معروف متى مركز كل دجان إن للدوبيو أسباب ديني يقوى كلا أيه جرين مايا مركز معروف ما واحد معروف هن واحد ليه هاي هو يرى لها وأب يرى لها ولا ماشينا نجو أنا يحاسكي على صوت حقنا سأصلا مركز هو مهم فرجلين تابضل قرابة يشوف فرجلين بوسكا إلا si wanaaga maaha inaan la fasaxin marka gurigaaga yuusan noqonin meel laba qabiil ay ku tartamaan qabyaaladii Soomaaliya ayaa hadda gurigaaga yaraa keenaysa waa problem waxaa ka mid ah waaqacaga qoyska ku jiro waxaa jiro qooqa shaqada dibadda saas u bixiyay طغيان العمل الخارجي يعني gurigii khatar ku jira islaantii waa shaqeynay odagii waa shaqeynay ama midkooda shaqeynay عشان shaqadaasi ayaa waxaa la yiri qoyska waajibaadkiisa iyo mas'uuliyadkiisa in badan ayaa laga tagayaa marka waxaa dhacaya waxaa la yiraahdo khalal ayaa dhacaya marka in la cilaajiyo loo baahan yahay